بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال جبوتي سلام سرع مل كستو جوكتين وأنكو كهاد لينا مجا إسباهيسيغا معارضك جبوتي كم مجا دير بلوك بوليسالي ناسيونال إيا مجا أيغا غار كابا قدومي آدن محمد عبدو إيا أنيغو قدومي خدر عبدي إبراهيم وحان رمنا inaan bulshooyinka reer Djibouti gudaha iyo dibadba joogaani inaanu la wadaagno war dhiilo le walaalayaal sidaad ogsoon tihiin waxa noo soo fidiyay codsi is-araga agaasimaha sare ee hay'adda qaran ee amniga mudane Hassan Said Khaireh oo codsaday inaanu wada kulanno shalay tole oo Isniin hayd bishu 16 Juun ay tahay 2025 saacadu markay ku beegan tahay 11 subaxnimo walaalayaal kulankaasi waxaan inagu weysiinaynaa inuu noo qabsoomay waxaanu rabnaana inaan iniga warhamno kulankaasi sidoo u dhacay iyo wixii aanu isniri intaanan kulanka u sii gudagelin waxaan rabaa oo jeclaystay inaan 4 arrimood afeef aan ka dhigto arrinta koobaad waa markii uu kulankani uu soo shacbaxay ee baraha bulshada la soo dhigay reer Djibouti dhammaantood weydiimo ciidaas farabadan ayay isweydiiyeen oo ay runtii ay naftooda ku harqiyeen oo meel walba ay iskaga mudeen bulshadu waxay noo soo baxday inay warka u ooman tahay sidaas awgeed waxaanu rabnaa inaana bulshooyinka reer Djibouti dhammaantood aanu haraatino laba in wax la ogaado oo war la helo waa kaalmo iyo xasilooni ay ka dhalato kalsooni iyo wada shaqayn war la'aan waa warwar iyo kutulikuteenada oo badata sidaas awgeed waxaanu rabnaa bulshadeeda inaan warwarka iyo warbahaarka ka saarno oonu ka hortagnana kutulikuteenada la isla dhexmari doono saddex hore Soomaalidu waxay u tiri madal marxaati dhigo masaajidna dhagax dhigo waxaan uga jeedaa waxaanu rabnaa inaan bulshooyinka reer Djibouti marxaati uga dhigno wixii meesha ka dhacay iyo hadal wixii aanu isweydaarsanayba afar marxaati ha ka noqotiin runtii waxaan ku daray marxaati ka weyn Ilaahay iyo muddo ilbiriqsi ka yar midna lama arag marka Ilaahayna marxaati buu ka yahay wixii halka aanu isku nili annaka iyo agaasimaha sidaas ogeed waxaanu rabnaa si daacad ah inaanu u soo gudbinno hadal wixii aanu isweydaarsanay annakoo iska ilaalinayna inaa hal shay aan ku darno amba aan ku goyno si aan ugu xadgudbin agaasimaha mudane Hassan Said Khaireh walaalayaal runtii si qurux badan oo sharaf leh oo maamuus leh ayaa naloo soo dhaweeyay waxaan nagu soo dhaweeyay oo agaasimuhu nagu kulmay xafiiskiisa agaasimaha hay'adda guud ee qaran waxaanu la kulannay midba mar baanu la kulannay muuna ahayn kulan saddex geesooda kulankaasi wuxuu runtii kulan kooban oo runtii marka la qiyaaso ka yar 10 daqiiqo ka yar ayuu ahaa laba baan ku soo ururin marka laga tago salaan intii aan isnili iyo iswaraysi guud oo de wax macnaa ku fadhiin marka laba baan ku soo ururin midi waa wixii uu naga yiri agaasimuhu midna waa wixii aan ugu jawaabnay ee jawaab aan ku celinay agaasimuhu wuxuu naga yiri waxaan ahay ergo ka socota madaxweynaha Ismaaciil Umar Geele oo fariin igu ku soo dhiibay fariintaas oo ah sidoo u dhagay agaasimuhu intan dambe uu madaxweynuhu uu ka cabanayo ay iyo aflagaado aad madaxweynaha u soo jeediseen isaga iyo familigiisa marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay inaad tihiin mucaarad waan aqoonsanahay
inaad tihiin isbaahaysi bloc polisaali national waan aqoonsannahay waanaka inii aqoonsannay xisbiyadiina waan aqoonsannahay maxay ahayd dhaqdhaqaaqiina siyaasadeed ee miitingadiina iska qabatiin dee dagaal inagumaanu soo qaadin dee cay iyo aflagaado ha layga daayo haddii kale de aniga dagaal baan ka yaqaanaa buu yidhi markaa dee noo sheegay intaa dee kulley waan dee ka warcelinay waanu ka jawaab celinay waxaanu ka nilay dee mudane agaasime dee xaaja waa nin loo sheegtay iyo nin sheegtee madaxweynuhu hadduu soo sheegtay in la aflagaadeeyo iyo la caayo isaga iyo faamiligiisa annagu waxaan nahay mas-uuliyiin baanu nahay da'joog baanu nahay waxaanu nahay bulsho idilbaa aanu hogaaminaa oon bulshadaa reer jabuutina wixii lagu xadgudbay aanu u hadalnaa oo xaqoogii u raadinaa da'daanu joogno iyo qiyamkayagu nooma aqbalayo inaanu madaxweyne iska daaye qof shaksiya inaanu aflagaadayno oo aynu cayno waxaanu nahay dad mucaarada oo responsable oo ku celinay dad mucaarada oo responsable ayaanu nahay arrintaasina arrin jirta ma ahin adiguba waxaa tahay mas-uulkii sare ayaa tahay dib codadkayga iyo diskuuradeeda waad u dhegaysan kartaa meel alla meel aanu kaga aflagaadaynay oonu ku caynay madaxweynaha iyo faamiligiisa haba yaraatee ma jirto waad soo eegi kartaa adiguba ayaan maxay ahayd aan ku celinay markaas wuxuu naga yidhi rag ininka iniga mida weeyi buu yidhi rag ininka iniga mida weeyi waxaa aflagaadada iyo caayda wada marka inta aan isweydaarsanay waxaan ku nilay mudane agaasime dee kolley iyo kolley madaxweynuhu hadduu isagu soo sheegtay annaguna waxaanu haynaa intaa iyo ka badan taayada gaarkaba marka laga yimaatay tii bulshada reer jabuuti oo xaqoogii iyo xaquuqdoodii la afduubtoo dhan ayaanu haynaayo dee maalin kasta ka hadalnaa haddii lasoo daadego kuwayaga loo yimaadaba dee aadan maxamed cabdu dee isaga baasboorkiisii baa laga haystaayo hadda wuxuu tegaya xashkii wuu tegi kari waaye baasboor la ii dalaateed aniga waa layga haystaa xisbiyada aqoonsi nalooma siin oo aqoonsigii baa naloo wada diiday maxay ahayd shaqooyinkaygii baa nalaga heliyey dad badan oo dhibaataysan oo dalkii baa wada jirta dee annagana waxaanu rabnaa dee inaad maxay ahayd codkayga gudbisid oo gaadhsiisid xaaladdu uu dalku ku sugan yahay xaalad wanaagsan maaha dadka markaa la eego siday xaaladii ku sugan yihiin dadkeennu xaalad wanaagsan maaha dee codkaygana waa inaad qaadid agaasimuhu wuxuu naga yidhi madaxweynaha waan ku celin codsigiina waanan qaadi saasaan kusoo kala tagnay dee bulsho reer jabuutow annagu warkaa waxaa inii soo gaadhsiinay ilaahay ka sokow inaad markhaati ka noqotiin annagu waxaan nahay dadkii inii hadlaayey dadkii xaqiinii la afduubtay maxay ahayd u hadlaayey dadkii xoolihiinii la qaatay soo ridaayey waxaanu nahay heegan baanu nahay ininkuna waxaan idinka rabnaa walaalahaygiyo wixiina inaynu baajinin heegan ahaada diyaar ahaada mar kaste oon inila hadalno oon wax inaga rabnona waxaan inaga rabnaa marxaba wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu